السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعشر كيني سديدات اكو سابسنا 8 parts of speech. Interjection ايان كهلا ينادو إلهي رادو. وما interjection. Interjection is a word that we use to express some feeling. marka interjection waa erey that we use kaas oo aan u isticmaalno to express si aan u muujino some feeling xogaa dareen ah. يعني interjection waxaan u isticmaalnaa waa erey kaas oo aan u isticmaalno si aan u muujino dareenkeena. tusaale oo kale so you are the troublemaker. marka waxaa saaran calaamatul yaab. oo kale yani waxaad aragtay wax la yaabto waa surprise oo kale. so you are the troublemaker. so adiga waxaad tahay the troublemaker diblow ayaa tahay. so ninka yani dhibka badan waa adiga. so you are the troublemaker. so adiga waxaad tahay marka diblow waxaad tahay diblow adiga. marka waxaa saaran la yaab waa qof la yaabtay oo dhib badan oo aad aragtay marka oo aad dhahday marka so you are the troublemaker waxaad tahay diblow adiga waxaad tahay diblow. marka waxaa kaloo ka mid ah interjectionka alas oo kale bah oo kale oo intuba as sounds waa codad that express kuwaasoo markaa muujinaya sudden feelings dareen degdeg ah ama dareen kadis ah ama dareemo kadis ah. marka feelingskaas oo dareemahaas oo kadiska ah waxaa ka mid ah regret oo kale ka xumaansho waxaad aragtay waxaad ka xun tahay regret. waxaa kaloo ka mid ah anger waad xanaaqday waxaad aragtay waxaad ka xanaaqdo marka waa anger. waxaa kaloo ka mid ah surprise waxaad aragtay waxaad la yaabto. intuba waxaa la yidhahdaa interjection. marka halkan ayaan kusoo gabagabeynaynaa casharkeenii taxanaan oo ahaa 8 parts of speech. please subscribe great channelka si aad ula socoto casharada kale ee soo socda insha Allah. asxaabtana la wadaag isma dhaafin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.